asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maanta waxaan rabaa inaan qudaartan aan ku dirsado mise aan ku karsado nuuroska. waxaa meeshan iigu jiraan rabaa inaan idin sheego. waxaa waaye zanjabiil, huruud, toon, kabsar iyo basbaas. intaana saxankaas iigu jiraan. saxanka hadda idin tusi. kan kalena waa kana waa ujeedaan. yaanyo waaye, barbarooni, basal. marka waxaan rabaa waxaan dhan aa ujeediin inaan ku shubto nuuroskan aan karsanayo. marka nuuroska markuu hergebku haayo waa fiican yahay inaa cuntid sidiisa, laakiin markaa ku darsanaysid basbaaska iyo digirtan iyo waxaan iyo wuxuu u fiican yahay dhuunta iyo waxaas dhan u fiican yahay. haddana waxaan ku darayaa huruud oo organic ah iyo zanjabiil oo organic ah. waxaan kasoo gatay markaa suuqa aadid waa arkeysaa leenka organiga inuu yahay nooc dhinaca kale qayb gooniya ee isku aruuriyaan wixii organic ah. marka insha Allah nuuraskia hadda ku shubto waa kuwa ujeediin. haddana waxaan rabaa inaa waxa aan ku shubto wax kale ma ahan, maadaama uu hadda magaaladii yacni magaalada ma aha wadanka dhan iska soo galay viruskan oo hergab caadi ah. waa hergabkii haduu isbedelayo, marka waa iska fiican yahay waxaan saan cuntid hergabka sidiis hergab markuu ku hayo waa iska jeceshay wax oo basbaas ku jira waxaas subsub inaa iska cabtid. marka waa fiican yahay waxaa inaa cabtid. marka haddii uu ku haayo hergab oo kale aa qunficaysid waxaa kuu fiican inaa cabtid wax kuleel sida suubka oo kale mise shaahi kuleel inaa cabtid aa kuu fiican. ama waxaa fiican basbaas iyo toon iyo waxaas inaa isku shidid. marka meeshan waxaa iigu jiro toon iyo huruud waaye, waa ujeediin. toontan iyo huruudan waxaan rabaa inaan ku shito caanaha. haddaa toon iyo huruud iyo caano aa ku shidid oo aa karisid asigoo qanda cabtid wallahi qunfac waa baxaa. anaa inta kaa dhahay because waa yacni inta qof aan u sheegay dhamarkii ay cabeen waxay dheen maasha Allah waana anfacay cabaayo waa cabnay maasha Allah u noqday dhuunteena kaale arag qunfaci weynaa waa naga hare. marka haddii adinkan aad tijaabisin insha Allah aa cabtiin waxaan u malaynaa inuu idin shaqeyn doono. marka caanihii waa intaan ku shubay waa iga dahtay wax yar laakiin iska tirtiraa insha Allah. waa karkaraa ujeediin. markuu kalarka uu saa isku bedelo uu saa u karkaraayo waxaa loo baahan yahay dabka inaa iska damisid oo ka dejisid. laakiin waxaa sii fiican dabka inaa sii ayareysid oo cabaar karkaraa fiican aa kasii fiican orodkan lagu karinayo. laakiin maadaama aan rabo inaan cabo hadda aan facayo maanta aan shalay ahaa fiidyaha markaan duubayo iyo maanta waa hadli karaa, shalay waa hadli waay. shalay qunficii isku daba joogu ahaa, haddana waa ka maasha Allah. marka waa miireysaa. markaa miirtid bakeeriya ku shubanaysaa. waa ka ujeediin. marka aan ka miirto oon diyaarsado oon rabo inaa cabo oo kale yacni waqtiga markuu dhow yahay la cabi rabo waxaa fiican horta koo inaa raashin cuntid markaas aad cabtid. marka hadda waxaan rabaa inaa raashinkii aan rabaa inaan cuno hadday aan karsanay adin tusay suubkii hadday aan samaystay. marka waxaan kalaan diyaarsanaa biyo liin waaye. meeshan waxaan kusoo shubay. meeshan waxaa iigu jiro waxaa waaye lubaan. lubaanta waa fiican tahay in biyaha lagu dhex qasto haddii aa qunficaysid. liintana waxaa ka helaysaa vitamin C, waa fiican yahay markuu hergebka ku hayo. zanjabiisha, liinta. hadda zanjabiishii iyo wuxuu iigu jiraa suubka. inta waxaan ku shubtay liintii iyo lubaantii aa iigu jiro biyaha. waa ujeedin caagan biyaan buuxiyaa ani macal ilmaheygii waa cabnaa kulligeen guriga. waxaa waa biyahaasaa la wada cabaa. suubkii waa kana ujeedaan aan karsaday haddaay oo iigu jiro huruudkii, zanjabiil, wax walbo, basbaas oo aan kusoo shubtay. haddaa rabtid chicken aa ku shuban kartaa, laakiin ani ma rabo inaan hilib dhan taabto maba rabo maadaama aan qunfacayo waxaan maba rabo hilib dhan jasaan leh. meeshan waxaan kusoo shiitay toon iyo waxaa iigu jiro iyo basal iyo basbaas iyo liin iyo cusbo. waa kana. marka inkastoo aan ku kariyey laakiin haddana waa kusii shubana. waa u fiican yahay hadduu hergeb ku haayo waa fiican yahay inaa cuntid toonta iyo basasha iyo basbaaska iyo liinta iyo dhuunta u fiican yahay. biyihii intana waa soo qastay. meeshan waxaa iigu jiro caanii iyo huruudkii. markaan aan cuno oon dhammeeyo suubkaas waxaan rabaa inaa caanahaas cabo iyo biyahaasna inaa cabaan rabaa. marka waana fiican yahay asigoo qandaca inaa cabtid mise aa cuntid raashinkan oo suubka ah. caanahana asigoo qandac waa fiican yahay. marka koo waxaa cunaysaa suubkana aa cabaysaa iyo baasada waxaana isku cunaysaa. markaa dhameysid biyaha waa cabi kartaa.
kadib caanaha ugu dambeeyo. Caanaha markaa cabtid haddana biyaha ka daba geenin. Horta koo suubka haddana biyaha cabaysaa. Markaa kasyar joogtid caanihii oo qandaca ka daba geenaysaa. Maasha Allah wallah waa shaqeynaa. Ani waa ii shaqeey guriga waa la cabaa waa shaqeey maasha Allah. Iyo intii gabdho aan u sheegay mar horena waa isticmaalo waxay abaaye hergabka maalintii aan ugu dambeeyo qunficii weynaa waa naga kala go'ay. Marka waa fiicay waxaan la cabaa haddana maadaama wadankii virus soo galay Ilaahay naga wada qabto yaa Rabbi. Cudur fiican ma ahan wax lagu farxano ma ahan hergab leeyahay laakiin hergabkii halaabay oo wuxuu isku bedelaa viruskan xun isku bedelaa Ilaahay ha naga qabto yaa Rabbi. Marka insha Allah idinkan walaalahayga intaan cuna caba Ilaahay daawaha noogu daro kulligeena. Wassalaamu calaykum.